haddaba senator ayuub ismaaciil yuusuf oo ka mid ah xubnaha reer waqooyiga ugu jira aqalka sare ee ka aragtida duwan guddoomiyaha aqalka sare ayaan weydiiyey bal hadda waxay isku maandhaafsan yihiin. horta Somaliland daan kuusii faahfaahiyo waxaa laga soo doortaa 57 xildhibaan oo 46 ka mid yihiin golaha shacabka iyo 11 ah aqalka sare. marka siyaasiyiintaas oo dhan waa isku wada masiir waxayna matalaan deegaan siyaasadeedka ama masiirka ummadda reer Somaliland iyo deegaankaas. marka talada guddoomiyaha waa mid naga wada dhaxaysa ma ahan mid guddoomiyaha gaarka u ah ma garat. laakiin haddii ay tahay maamul waliba ama deegaan waliba siday u wada socdaan ay tahay oo dad badan oo siyaasiyiinina ay qabaan inay habboon tahay in maadaama uu yahay xubintii ugu sarreysay ee reer waqooyiga ee xilka haya inay ahayd in taladiisa la tixgeliyo idinkuna aad ku daba fayshaan aragtida miyaa ka duwan tihiin taa qabtaan? arrintaas waan ku soo dhaweynay processka hadda bilow ma ahayn dhamaadun buu hadda lagu jiraa waqtigii fulintiisa la marayay. guddoomiyahana wuxuu kow ka ahaa dadkii aragtida siyaasadeed qabay dalkan in doorasho dadban u aado isan doorasho qof socda ka dhici karin. aragtidii waa hirgashay. wuxuu ahaa guddoomiyaha soo jeedintiisii u horeysay in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka lagu wareejiyo awoodda fulinta ee doorashada lagana qaado hay-adaha sharci dejinta ay kow ka tahay aqalka sare ee golaha shacabka. marka heshiiskii waxaa galay waa dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedyadii oo madaxda maamul goboleedyada ay matalayeen. heshiiskii ay gaareenna waxaa loo soo gudbiyey labada aqalna waxaa ansixiyeen heshiiskaas oo guddoomiyaha iyo aqalka sareba ay qayb ka ahaayeen. haddii maamul goboleedyada kale ay iyagu soo xulayeen kuwoga sida cadna Somaliland aanay haatan ka mid ahayn laakiin siyaasiyiintiina waqooyi ka yimid aad leedihiin dadkii baanu matalaynaa cidda ugu sarreysay hoggaankiina siyaasadeed ahay miyaanay halkii buuxinayn maamul goboleedyadu ay u buuxinayeen gobolada kale? heshiiska dowladda goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku gaareen magaalada muqdisho oo la xiriirta doorashada 2020 wuxuu cadeynayaa qodob dhigayaa jiro oo heshiiska ku jiro oo lagu heshiiyey oo dhigaya in ay xukuumadda federaalka ay soo magacaabayso guddiga doorashada ee labada aqal ee Somaliland. waa midda aqalka sare ee guddoomiye Cabdi Xaashi uu saxeexay. midda maanta taagan in fulinteeda laga shaqeeyo waa midaas ma garatay. marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa BBC-dan aan u faahfaahiyo qodob dhigaya ayaa jira in xukuumadda federaalka ay soo magacaabayso guddiga doorashada ee labada aqal ee Somaliland ayadoo la tashanaysa siyaasiyiinta gobolada waqooyi. annagana talo badan baan la geliyay guddigan waxay ku yimaadeen sidaas. laakiin guddoomiyaha aqalka sare wuxuu ku doodayaa inay loo maro nidaamkii doorashadii dadbaneed ee 2016 oo kale sidii guddoomiyihii baarlamaanka xilligaasi uu saxeexay waraaqii ka soo baxay xafiiskiisu ay dhigayeen. adiguna waa adigan leh dawladdu inay soo magacawdo ayaa lagu heshiiyey. ha soo magacawdo laakiin tala soo jeedintu soo kama imanayso siyaasiyiinta reer waqooyiga iyagoo isku dhan oo weliba kuwiina idinku siiniyarsani ay tahay inay soo jeediyaan. guddoomiyaha Jawaari xilligii 2016 waxa kaliya uu soo magacaabay guddigii soo xulista musharaxiinta aqalka sare ayay ahayd. laakiin doorashadii golaha shacabka ee dadbaneed waxaa soo xulay xukuumaddii markaas joogtay oo hogaaminayay Cumar Cabdirashiid iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii waqtigaas Maxamed Cumar Carte. sidoo kale guddoomiye Jawaari xilligii 2016 ma ahayn guddoomiyaha golaha shacabka oo kaliya waxa uu ahaa markaas kusimaha madaxweynaha. midda awoodda uu siisan waa midaas hay-adda sharci dejinta oo annaga aan qayb ka nahay oo guddoomiyahana noogu horeeyo kama shaqayn karno mana soo xuli karno guddi doorashada sababtoo ah dadka la dooranayo waa annaga. dalkana waxaa doorashadiisa ka mas-uulka ah sidaad la socotid maalmahan baa magacaabista guddida doorashada ilaa heer federaal xubnihii loo dirayay ama siid ha noqoto ama fiid ha noqoto iyo khilaafaadka waxaa magacaabaysa waa xukuumadda. marka annaga waa dadka doorashada galaya. marka annaga inaan kubadina ciyaarno albitarihii kubadda ciyaarta qabanayana ma noqon karno walaal ma garatay. marka maxaa xala mar haddii ismariwaagaasi uu taagan yahay ma isku daydeen inaad la xidhiidhaan oo guddoomiyihii aqalka sare intaad la fadhiisateen sidan doodiinu tahay aad tustaan? walaal sida aan kuu sheegay inta badan dadka siyaasiyiinta ee deegaankaas ka soo jeedo oo aan ku jiro oo guddoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ku jiraan shirar dhowr ah ayaan iskugu nimidnay. wada hadallo badan baan galnay. guddoomiyahana wuxuu ku dhegnaa inuu asaga yahay qofka soo magacaabaya guddigan. runtii in badan aan ku qancinay arrintaas way noo suurtageli weyday waqti badanna waan gelinay. waana garan kartaa tirada intaa leeg 52 xildhibaan ee aragti ah iyo guddoomiyaha iyo laba xubnood oo la aragti ah sida ay u kala fog tahay. marka annaga waxaan rabnaa in doorashadan ay dhacdo ummadda Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada kala duwan ku nool aan la mid noqono doorashadeena aysan ka harin si nadiif ah oo xalaal ah oo xor ah ay ku dhacdo sababtoo ah odayaal baa jira odayaal dhaqameedyo
oo soo xulista ergooyinkan leh ergooyin baa jiro oo reeraha ah marka wixii lagu soo dhaqmayay haddaysan maanta wixii ka duwan 16kii aysan ka jirin dalka doorashadii hore qaabkay ku dhacday iyo qaabkan ku wada galnay waa la ogyahay maanta midaan ku gelayno waa midaas ma garad ayuub ismaaciil yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka magaalada Muqdisho goor dhaweyd igu waramayay qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC da oo aragtidooda ka dhiibanaya arrimahaasi ayaa iyaguna waxa ay